وانا السلام يا دمان حسابتي إذا بقي كحران كوا لايف كأي قانا كوا ما عرفتي براه برشلونة أنت إذا كلاتي على الصعدة دمانتي وسلامتي سودو هذا عجل كمان تحكوا سابسية كورونا فيروس فضلا دقيسو حتى هذا جودي هذا ربط لكن دقيسو بلنا نجاقد إن أتصيفها في ست بركي أرن كان كهلا وأرن حساسية وباهن دمانتين إنه كوض قيب قادنه هدي ميد أنا نجمد أسكت دقترو دبعتهر له يعني نوع إيمانيسا عجل كي وحنا سكودي إن كوبو أدو كوبو جابيو هدنا وأرن أدي إن شاء الله مهم إنه هو waxaan ka helay koolal ama dad ba iga soo wacay oo isla wadankan Sweden dhexdiisa hadaan idinkaga bilaabo magacayga Yaasiin Cabdullaahi baa la yiraahdaa waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden intaas markaan ka sii gudubno saaxiibadayda aan Stockholm ku leeyahay ayaa waxay iga soo waceen teleefankayga iyagoo ii sheegaya dhibaatooyinka meesha ka jira iyo dhibta iyagoo meesha ku hayso iyo aniga oo halkan balaftaydu marxaati ka ah walaalayaal cudurka coronavirus aad buu u faafay dhamaantayada Soomaalida lafteeda xataa aad buu noogu faafay waxa idin sheegaya oo aan rabaa inaan idin la wadaago maanta oo ay tahay maalin axada waxa inoo yaala 12 mayd oo Soomaali ah oo cudurka coronavirus u dhintay wadanka gudihiisa oo dhan 6 kamid ah ilaa 7 kamid ah waxa ay yaalaan Stockholm waxa aad muhiim u ah horta dadkaas Allah u naxariisto ehladoodana samir iyo iimaan Allah ka siiyo waa cudur aafiyay dadka taasna waxa keentay waa يعني aqoon daro annaga dhexdeena nagu dhacday oo cudurka loo qaatay in uu yahay cudur maaragtay flu ama hargab xumaaday cajalada hadda aan soo dhigay oo haweeneyda London joogtay ee tir hargab xumaaday way iyadoo og inay xubnada hayso oo dhuuntu xanuunayso oo cudurkaasi si aad isaga shakisan ay suuqa iyo basaska intay raacday dadkii kale tan ku faafinaysa taasna waa aafo kale oo iyadana haysato qofka bini aadanka hadduu waxba akhrinin dadkeena inteeda badan waxba ma akhriyaan walaalayaal cajalkaneeti sii gudbiya una sheega macnaha inay dhageystaan si degan ay u dhageystaan dadka meesha yaalo tacsida oo kaleeto ayay aadayaan tacsida marka ay tagaana waa kuwan isa salaamayo isla dhunkanayo isku ooynayo oo maaragtay tusay inay muxuu ahaa ka xun yihiin qofka dhintay waa arin loo baahan yahay marka xaaladdu ay xaalad kaleeto ay tahay laakiin maanta waxa kugu filan in aad qofka dhibaatada oo haysato macnaha aadan u tagin war aabaha walaalka dadka aan salaamin baa lagu leeyahay macnaha kaliga gurigaaga isku xir macnaha qofka tacsida adigoo ka xun inaadan xitaa aadan u tagin oo telefoonka intaad ku wacdo ama message intaad u qorto tiraado waan ku imanaya laakiin xilligan ay macquul ma aha maadaama dadkii ay u wada dhimanayaan cudurkan ay hadartan halista ah iyaga laftooda way ku fahmayaan way og yihiin qofkoodii ehelkoodii baa cudurkaasi laftiisa u marka way garanayaan hadaadan u imanin macnaha wax umad iyo colaad ah oo lagaaga qaadayo haba yaraatay ma jirto waxa wanaagsan macnaha marka lagu dhaho arinka marka uu alvalid macnaha uu yahay arin aad macnaha serious oo khatar ah marka lagu yiraahdo ka joog inaadan afka dadka ku soo celinin oo aadan muxuu ahaa aadan isdhaga tirin oo wixii lagu dhahay wax kale aadan sameeynin because naftaada adiga hadaad nacday waxaad galaafanaysaa dadka aad u tagaysid dadka aad soo salaamaysid iyo dadka aad la caweynaysid ayaa naftooda xataa galaafanaysa fadlan macnaha si kasto idin kugu sheegnay si tartiiba maanta waxaan rabaa si kulul inaan idin kugu sheego oo aan muxuu ahaa sanka idinka iska kiigeliyo dad waa jira laga yaabo inay aniga imaagaan oo ay dhahay war Yaasiin hadal kulul baad ku hadashay maxaa kugu dhacay hadalka kulul marka qaarkood waa loo baahan yahay anigu qofna qaas ah oo lama jeedo qof qaas ah taagi maayo qof qaas ah waxa aan rabaa waxa weeye jacayl dadkayga aan jeclahay Soomaalida aan jeclahay baa iga keenay inaan arinkaas aan ku dhaqaaqo aniga idinku dhiirigelinaya maadaama aan waxyaalo marar badan aan si toos ah intaan cajaladayga hore aan ugu hadlay aanan dhegna jaraqla iisiin markan waxaan isku dayayaa bal sidii kaleeto inaan idinku sheego war waxaan idin iri wadanka gudihiisa waxa inoo taala 12 qof oo Soomaali ah oo meyd ah oo dhimatay oo talaajadaha dalka ku jira
dadkaasaytii waxay u baahan yihiin in loo duceeyo inaad u duceysaan bay u baahan yihiin waalidkoodiina maaragtay iyo dadka eheladooda sabar iyo iman ha ka siiyo iyagana jannada ilaahay maaragtay ha geeyo dad shahiid ah way cudur maaragtay halis ah bay u dhinteen oo waliba qatar ah dadkiina faafinaya waxaas baa la sameeyaa iyo liin baa la cunaa iyo intaa la sameeyaa iyo walaalayaal ka daaya dadka lugooyada aad lugeynaysaan kuwiinan kaleeta dhahaya muxuu ahaa waa hergab xumaaday war hergab xumaaday 10,000 oo qof uma dhimatay ka daaya idinkuna lugooyada ma garanaysaa yani waxa aad faafinaysaan aqliga bini aadanka ah keeni maayo aqliga saliimka ah keeni maayo saa doonto u qaado waxaanu ku sheegaynaa sida ay tahay dhageyso dhaqaatiirta iyo waxa kaleeto ajal yar oo maaragtay nin buufis ku dhacay ama naag buufis ku dhacday oo Facebook ka hadlaysa ama WhatsApp baad isu gudbinaysaan wixii baa intaad run u qaadateen baad ummadii dhan aad waasheen war hargab caadi ah ma aha guriga joog laguma dhihilayn meeqa hargab iyo flu iyo influenza na soo martay anagu wadanka intaan joognay maxaa loo dhihi waayay dadka guriyihiina jooga war aqliga saliimka ah shaqeeya bilaa caleek haddaad idinku naftiina nacdeen ummadda kaleeto oo la degantiina caruurtiina iyo kuwa kaleeto ha galaafanina oo maaragtay dhibaato u keenina bilaa caleek ma garanaysaa yani haddaad u baxdo waxa aad wado hadduu cudurka adigu ku hayo cudurka hadduu kugu dhaco waa hub oo kaleeto weeye dadka haddaad geysid qofkaasayta adigoo dilay oo kaleeto weeye kolley anigu wadaad maahay laakiin wadaadada haddii la weydiiyana sidaas oo kaleeto uu noqonaya adigoo og cudur khatar ah oo xataa daawo aanan loo haynin haddaad dadka kula safaado dee qofkaasayta waa dishay walaale ama walaashay okay kaarka ayaa kala go'ay muxuu ahaa kaarkan bedelay so haddaad walaal adiga naftaada aad nacday dadka kale ta galaafan tacsida walaalayaal haysu tigina oo meelaha kale ta haysu tigina oo dhalinyaradiina u sheega oo kuwa imaqlaaya idinkuna sii faafiya war meelaha fiikada iyo qaxwaha laga cabo war waa meelaha laga soo qaado muxuu ahaa cudurrada laga soo qaado war haddaad gurigaaga joogi kartid walaal gurigaaga joog haddaad muxuu ahaa aadan joogi karinna meeshii aad u socotay toos u tag oo toos kaga soo noqo ma garanaysaa yani haddaad xanuunsan tahay group baan sameeyey oon ugu talagalay micnaha in dadka iyaga calaaqali Sweden jooga in aanu iska warqabno dhammaanteen keen xanuunsan iyo keen caafimaad qaba inaan soo qabno hadba qoladii meesha dhammaan markaan halkaas soo wada galno qofba magaalada uu joogo haddii ay qaylo ka soo yeerto inaan groupkaasi taan u dirnaa dhahno war meeshaasi tiba lagaga baahan yahay war qofkaas walaalka ka warqab ama u soo adeeg haddii adeeg ay noqotana uma baahnid qofka gurigiisa inaad gashid lacag buu switch kugu soo diraya ama cash buu ku dhiibaya dukaanka tagaysa wad u soo iibinaysa gudaha gali maysid albaabkaad u dhigaysa waad garaacaysa markuu furan asaga qaadanaya xiisa salaamay maysan uma baahnid inaad contact micnaha aad saa isu taabataan ma garanaysa soo marka waa waxyaalaha khayrka ajirka xasanaadka laga helayo war ajalkan hadaad aragto walaal iyo walaashay faafi war muxuu ahaa anigu lacag ku heli maayo waxba xasdina lacag ku heli maayo ajaladahaygu reclam iyo xayeysiin midna malaha dadka xayeysiinta qaatun bal lacag ku qaata anigu xayeysiin ma qabe bal faafi oo muxuu ahaa dadka walaalaha iyaga Soomaalida ah oo aynu jecelnahay oo ehelkii qaraabada aynu wadanahay dadkaasi tigaarsi dad waxa jira xataa aan waxyaalaha qoraalka xataa aan akhrininba oo ka jecel inay dhageystaan laga yaabo inay af Soomaaliga akhrin karin laga yaabo inay muxuu ahaa in aqoon intaasay tila lahayn war cudurkan waa cudur halis ah weeye war qofka uu cudurka qabsado waa dhibaato weeye intuusan ku imaaninna gacmaha iska dhaq oo waxa la sheegayo oo dhan ka qaado muxuu ahaa ka qaado maaragtay warbixin maanta BBC da baan dhageystay ninba BBC da ka hadlaya cudurka Soomaaliya oo ku dhacay oo BBC da laga wareysanayay waxa uu ku hadlay hadaad aragto waad naxaysaa yani cudurku uu ku dhacay waan ka fogaaday waa ka baskooday buu yiri micnaha waan caafimaad qabaa hadeertaan laakiin muxuu raaciyay wax dhib ma laha waxan waa iska basiit weey buu yiri wax dhib ma laha yani isagii cudurku ku dhacay haduu caafimaad qabay يعني وحسي فافينايا إلهي كبد بهديه وحسي فافينايا معناها عذر كان إنه صن وحبا أهين كوا سوكلات إنت لما مقلوبة وحلليه وحا ما أهم مركز اللي يسكون الدقيقة اللي يسكون كنيا اللي السلامية أو ماليه قحوها اللي يسكون الدقيقة وروحا كجوجا يعني قفك بني آذن كور كجوجا دي اللي راح حافي عنه وح مقلو سبب باجرت كجوج الويري وعندنا حرية دكا قاعد ما يس حرية دنا دقيقة أسكال إلهي وكسية دقيقة حرة بعض اللطي دقيقة حرة أو ما رتعنا سلسلة دونتي جمعها كعجة حرنين بنور كهوية كصوب حذي سمرك محل
hadlayo ma aha xorriyadda, waxa laga hadlayo waxay tahay in faafkan cudurkan halista oo faafaya in la joojiyo baa laga hadlaya. fahma yani caqliga ha shaqeeya nadiifka ah. marka intaasay tibaan rabaa maanta insha Allah inaan kusoo gabagabeeyo. waa markii saddexaad oo aan leeyahay walaal ha ka harina faafi oo dadka walaalaha gaarsii, yani salaanta iska daayo, isu taga iska daayo, oo xataa haday tacsi dhacdo qofka yani wuu garanaya, wuu dareemaya, iyaynan la isku booqin. dalka Talyaaniga maanta sheekadu waxay tahay qofka haddii isbitaal la dhigo ama isbitaal ku dhinto ama inta ma garanaysaa lagu soo celin maayo waalidka hor, dawladda gubaysaba macnaha hilibkii wixii dhan waa la gubaya, la isu soo celin maayo. iyaduna waxaad ka dhageysan kartaan BBC-da maanta oo axad ah baad ka dhageysan kartaan haddaad rabtid inaad hadalkayga aad xaqiijiso, aad hubiso. macnaha waxaan waxa ma aha iska leeyahay ma aha, waa wax aan xaqiiqdeeda aan hubo oo meel iyo raad loo raaca leh. dadka kuturkuteynta oo hebel baasaan yiri, nin Shiinees ah macaa dhakhtar baasaan yiri, kan bayiriyo liinta cuno kan cuno isku qaso oo meel dhigo, waxaasi haday wax sameynayso kumanaalkaasiti ma dhiman lahayn iyo maaragtay 10,000 baa qof baa ku dhimatay cudurkan dartiis. walaalayaal caqliga aynu furno, cagahayaga aan ka adkaano. telefoonada waad jeceshiin Soomaaliya haddaan nahay, telefoonadin isticmaal, halka ku salaama, halkaas kaamiradaha furta haddaad rabtaan. qof walba meeshiisa shaaha intuu ka soo shubto meeshiisa maaragtay ka cawiya, ka qosla, ka sheekeeyo. aalada fara badan iyo maaragtay baa jira oo la isticmaalo, waxaas oo dhan isticmaala. laakiin ka hara walaalayaal meelaha la isu tagay. haddii aad xanuunsan tahay banaanka waad u bixi kartaa, guriga kaliya kuma jiri kartid, laakiin dad ha la kulmin, banaanka soo warwareeg hadhowna guriga ku soo noqo sidaada caadiga noloshaada caadiga ahayd maaragtay guriga dhexdiisa ahayd meesheedii ka sii wad. intaas baan ku kala tagaynaa insha Allah. warsan iyo weersan, magacayga Yaasiin Cabdullaahi baa la yiraahdaa, waxaan deganahay magaalada Göteborg ee dalka Sweden. intaan mar kale aan ku kulmayna insha Allah program sidan oo kale ah, waxaan idinkaga tagayaa ila liqa. Assalaamu calaykum.